qaar kamid ah ehelada maxaabiistii shalay la keenay magaalada Muqdisho ee laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka Ethiopia ayaa dawladda Soomaaliya uga mahad celiyay dadaalka ay u gashay soo daynta maxaabiistaasi oo qaarkood in muddo ah ay ku xirnaayeen xabsiga ku yaala wadankaas Ethiopia. wariyahana Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. warka maxaabiista Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada dalka Ethiopia ayaa ahaa mid kamid ah wararka ugu saameynta badan ee 24 saac la soo dhaafay Soomaaliya. warbaahinta qaranka ayaa isku hawshay in wararkaasi bulshada deeqsiiso. waxaan tagnay halka dadka Soomaaliyeed ee xabsiyada dalka Ethiopia laga soo daayay lagu hayo kuwaas muddo sanado kala duwan ku xirnaa dalka Ethiopia. ehelada dadkaasi ayaan la kulanay qaar kamid ah xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo golaha shacabka Soomaaliyeed kamid ah iyo ehelada dadkaasi maxaabiista ayaa ka hadlay dareenkooda. waxqabadkii ugu weynaa saa ka warqabtay xalay magaalada waxaa soo gaaray ku dhawaad 114 qof oo maxaabiis ah oo ku xirnaa dalka Ethiopia soo gaaray. waa guulaha ay xukuumadda gaartay waa siiba waxaan maxal lahay mahad ilaahay iskale ka soo ka waxa iskale ra'iisul wasaaraha oo tagay meeshaas la kulmay dhigiisii ra'iisul wasaarihii ka jeeday maxal lahay dalka Ethiopia oo arintan waa arin faa'iido ah. magacaygu waa Amaan Maxamed Cabdullaahi. shucuurtayda aad bay u kacsan tahay ma soo koobi karo. mahad Allah ayaa iskale بعد الله وحمد هاد إسكال مدحوين هنا فرماجة إياه يسوع سعره هنا خير وخير بدن الله بسيء. أنا قاعد أبتجي باقي حرناي مدوه حرناي تضبصنا يبرئ أبتجي هاد والله كيناي وحالي قبتي أو برا لقي قبتي ماشي أنا لو حري مرك الله ما هاد إسكال يسوع سعره مدحوين وحن كعد سنة يا صومالي بدن أو ودمنا الشيء كحرن إن سيدنا كلنا وكنتي aad baa dawladdeena aad bay u mahadsan tahay wasaaraha aad buu u mahadsan yahay. waxaana ka codsanaa Soomaalinimada inaad kor u qaadid magaceena kor aad u qaadid madaxweyne ra'iisul wasaare haddaad maqlaysid oo codkaygu soo gaar waxaan ka codsanaa fadlan waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo meel walba caalamka joogto oo ku xiran waxaan ka codsanayaa inaad soo deysid inaad wadankeena ku soo celisid wadankeena qaniya dadka Soomaalida oo wadamada ajaanibka joogo فضلا وحنا نيجا توجا يا أبيك ودن كينة تمادين أو حقيقة بستين أنت ودن الشيء نلقوا حري لها وحنا نيجا عد سنة صومالية أنا ودن الشيء الكسر تكتين ودن كينة تمادين ودن كانوا وانبط قرح بكذا قرحنا مراكن وكذا. لا سمسم عبد الرحمن dadka Soomaaliyeed oo la keenay aad ayaan ugu faraxsanahay. mudan ra'iisul wasaare aad ayaan kugu mahadnaqaynaa. shucuurteena aad ayay u kacsan tahay. dad badan laga soo tago naga maqan aniga oo kamid yahay walaalkay ku jira xabsiga sanadkii 6aad u socdo dadka laga soo tago ku jira. mudan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa dadaalkaad inaad laba jibaartid dadka naga maqan oo dadkeena inaad noo keento noo laba jibaartid aan ka codsanaynaa. magacaygu waa Axmed Garaad Faarax. أهلكيga oo meesha ku xirnaa xabsigana ka soo baxayna waa xal lagu magacaabaa Cali Faarax Sharaawe iyo Cabdi Maxamed Cumar iyo Maxamed Cilmi Cabdulle oo saddexdaba adeeryaashay ah. saddexdaba way ku jiraan alxamdulillah. waxa laga qabtay jigjiga lagu qabtay ayagoo adsab u socda meesha lagu qabtay waxayna ku xiran yihiin 5 sano meeshaas ku xirnaayeen alxamdulillah. dadaalka dawladda ay gelisay soo aragtaa aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol aadan ugu faraxsanahay. magacaygu waa Mawlid Cabduqaadir Cali. yaa ka xirnaa waxaa iga xirnaa walaalkay Maxamuud Cabduqaadir Cali oo muddo dheer iga xirnaa alxamdulillah rabbil caalamiin. waa la keenay 6 sano xirnaa 20 sano lagu xukumay buuhooda meel laga qabtay oo xuduudka ah xaqdaraana lagu haystay alxamdulillah rabbil caalamiin. dadaalka dawladda ay gelisay dadkan Soomaaliyeed in la soo daayo oo ay dadkoodii iyo dalkoodii dib loogu soo celiyo ma sha Allah aad oo weyn madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda waa u hambalyeynaya. magacay may balaray Maxamed Al Nuur Al may laray eedan ka faraxsana geeka may laray aragday eedan faraxsana dareen aragday hambaarsan wadaniyada ayaa may laray aragday banaanka kala surugni dadkan oo aragday walaalo oo Ethiopia la ku dhig eedan ka faraxsana haddii una may laray shacabka Soomaaliyeed hatu korna may laray aragday in doodani hatan aan sii doodaan anta dhamaan may codsadaan eedan ka maasanta dadaalka dawladda geliyay wal eedan faylo may laray dadaal oo aragday lahan koobo korna waay. Maxamed Ibrahim Xasan oo maanta ku faraxsanaa beelo soo daayay oo dawladda iyo Ethiopia oo soo daysay 7 sano xirnaa. marka dawladda Soomaaliya dadaalka ay sameeyeen aabaha la soo daayay see u aragtaa. hambali ayaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
cabdiraxmaan maxamed kaarshe waxa uu muddo 7 sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya hase ahaatee waxa uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo 114 ruux ee shalay laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde sheekadan ayaana dhex martay ninkan ayaan ugu horeyn ku bilaabay magacayga waa cabdimahad axmed kaarshe weeyaan wallaahi hadda rajadan haddartan macnaha galnay waxaan u malaynayaa weligii intaan Soomaaliya aan joogay isma lahayn dadaal intaan la eego dawladda Soomaaliyeed gaari doontaa laakiin maadaama hadda macnaha dawladdeedii meesha naga soo deesato waddankeena la keenay waxaan rajeynayaa maxaabiista kale oo nala midka walaalaheena ayagana qaarkood markaad fursad u saamixin waxa weeyaan inay dawladda ayadana musaabiix doonto wax laga qaban doono anagana waddankeena joognaa dawladdiina aan ka nimidna si wanaagsan baan inoo dhaqmi jirtay si wanaagsan oo ugu nimid inta xabsiga ku jirtay ehelkaaga xiriir ma lahayd dhammaan maxaabiistan oo ah rag dhalinyaro u badan ayaa wajihooda ka dheehan karta dacdarada iyo dhibaatada nololeed ee ka muuqata waxaana ku jira qaar 10 sano ku dhawaad ku xirnaa xabsiyada dalka Itoobiya cali cabdiraxmaan aadan SNTV muqdisho